diblomaasiyadda ayaa daawanaysa dhammaantiin ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qaybtan arrimaha dunida muslimka ayaan ku eegi doonaa gaar ahaan xaaladda dalka Suudaan waa habeen ay soo galayso Isniin 16 bisha 11 hogaamiyaha militariga ee dalkaasi Suudaan Generaal Abdulfataax al-Burhaan oo bishii hore laga qabsaday ciidankiisa magaalada muhiimka ee Al-Fashir wuxuu ku dhawaaqay dagaal saf ballaaran oo ciidankiisu ay ku qaadayaan gudaha ama galbeedka dalka Suudaan si gacanta ciidanka dawladda dib loogu soo celiyo gobolada Darfur oo si rasmi ah uga baxay markii ay kooxda RSF weerar ku qaaday goobo kala duwan oo gobolka ku yaala kana ceerisay ciidanka dawladda. Burhaan waxa uu guud ahaan diiday in wadahadal uu la galo RSF wuxuu ku baaqay inuu qaadi doono duulaan aad u ballaaran oo lagu ballaarinayo gobolka Kordofaan laguna soo celinayo gobolada ay Darfur ka kooban tahay oo wuxuu dadka ku wargeliyay in ay hubka qaataan oo dhammaantooda ay galaan heegan dagaal oo sareeya. Tabinta waxaan ku eegaynaa diyaar garowga dagaal ee Burhaan. Turkiga iyo Masar hub aad u badan ku daabulaya Suudaan dagaalka Kordofaan iyo sida hadda dhaqdhaqaaqyadu ay u socdaan cabsida laga qabo in RSF ay mar kale ku rogaal celin karto magaalada Khartoum. Burhaan iyo baaqiisa dagaalka hogaamiyaha militariga ee dalka Suudaan Abdulfataax al-Burhaan wuxuu ku baaqay in dadka reer Suudaan ay u diyaar garoobaan dagaal adag oo lala galo kooxda dalkaasi dagaalka ka wado ay iska soo horjeedaan ee RSF ama dacmu sariic kuwaas oo dhawaan la wareegay magaalada muhiimka Al-Fashir oo wuxuu dadka ku wargeliyay dhammaantooda inay hubka qaataan oo ay galaan difaac iyo weerar si loo joojiyo buu yiri kooxdan oo hadda doonaysa inay la wareegto gobolka Kordofaan xilli bishii hore ay gacanta ku wada dhigeen dhammaan gobolada uu ka koobnaa gobolka Darfur. Hogaamiyaha militariga Suudaan wuxuu ku hanjabay in si degdeg ah uu la soo wareegi doonaan magaalada Al-Fashir ama ay gacanta ku soo dhigayaan oo ay gacanta RSF ku dhacday dhamaadkii bishii hore kadib 5 bilood oo labada dhinac ay ku jireen dagaal aad u qarar oo mid walba uu adeegsaday nooc kasta oo hub ah ahaana diyaaradaha kuwa ugu badan oo lagu dagaalamayay labadii sano ee la soo dhaafay. Burhaan wuxuu hadda ururinayaa ciidan dagaal oo laga horgeynayo kooxdan oo si weyn ugu siisiqaya magaalada Bombos oo ah gobolka Kordofaan halkaas oo noqotay xudunta dagaalka labada dhinac ee SAF iyo RSF. Burhaan wuxuu ku doodayaa in guud ahaanba aynan geli doonin wax wadahadal ah oo la yeesho dhanka RSF wuxuu ku baaqay in dagaalka uu yahay xalka kaliya ee lagu soo celin karo dhulka gacantooda ka maqan iyo meelaha kale ay qabsadeen RSF taas oo si weyn u sii xoojisay weerarada ka dhanka ah ciidanka dalka Suudaan. Kumanaan shacab ah oo qaatay amarka hogaamiyaha Suudaan ayaa lagu waramayaa inay isu diyaarinayaan dagaal saf ballaaran ujeedada ugu weyn ee dagaalkana tahay in la kararjabiyo RSF oo si xawli ah u wada duulaan ay ku doonayso inay ugu gudubto bartamaha iyo waqooyiga Suudaan halkaas oo laga saaray 12 bilood ee la soo dhaafay kadib dagaaladii qaraara ee ka dhacay Jasiira Niilka Cad iyo magaalada looga taliya dalka ee Khartoum oo bilowgii sanadkan soo gashay gacanta ciidanka dawladda. Dagaalka Kordofaan RSF waxay doonaysaa inay dib uga raaraciso Khartoum. Kooxda gurmadka degdega ah ee RSF ayaa weeraro aad u ballaaran ka wada gobolka Kordofaan ee galbeedka Suudaan waxay dadaalkeeda dhan isugu geynaysaa sidii ay u qabsan lahayd magaalooyinka muhiimka ee gobolkan ku yaala gaar ahaan kuwa ay u aragto inay leeyihiin muhiimad aad u weyn oo aan la dheelsan karin. Magaalada Bombos oo dhacda galbeedka Kordofaan ayaa ah aagga dagaal ee hadda ka socota colaadda ugu ballaaran ee Suudaan waxaa magaaladan hareereeyay oo dhammaan dhinacyo kala duwan isaga gadaamay RSF ciidankeeda oo doonaya in ay sidii ula wareegi lahaayeen goobtan ay ka shaqeeyaan waxaa loo arkaa mid muhiimad u ah isku xirka bartamaha iyo galbeedka Suudaan. Kooxdu waxay sheegeen in ay qabsatay xaafadaha magaalada qorshaheeduna yahay inay la wareegto qeybaha kale ee magaaladan maadaama xoogeeda oo dhan la isugu geeyay magaaladan oo si weyn loogu diriray tani markii la kala calaf qaaday magaalada dunida magaceeda qabsatay Al-Fashir. Bambalas waxay Khartoum hadda u jirtaa qiyaastii 680 kilomitir waa magaalo muhiim u ah jidka tareen ee isku xira galbeedka bartamaha dalka Suudaan. Magaaladan oo ka tirsan koonfurta Kordofaan waxay RSF ka shaqeynaysaa sidii ay uga sii gudbi lahayd magaalooyinka ku yaala ee kale ee Suudaan iyadoo ujeedada ugu weyn ay tahay in ay dib u gaaraan una qabsadaan magaalada caasimadda ee Khartoum halkaas oo laga saaray horaantii sanadkan sii dhamaanaya kadib dagaal culus oo labada dhinac ku dhaxmaray dhammaan xaafadaha iyo jidadka Khartoum oo hadda ku jira gacanta ciidanka SAF ee dawladda. Turkiga iyo Masar oo hub aad u badan ku daabulaya gudaha Suudaan.
tan iyo markii kooxda RSF ay gacanta ku dhigtay magaalada Al-Fashir caasimadda galbeedka Darfur wadamada taageera dhanka ciidanka dowladda waxaa soo food saaray walaac weyn oo ku wajahan inay halis ku jirto dowladii dunida aqoonsaneed ee Suudaan. waxaa soo baxay xogo sheegaya in ciidanka Suudaan ay wajahayaan culays weyn oo ay ka mid yihiin in la soo riday diyaaradahooda dagaalka iyo inay la kulmeen niyad-jab xoogan oo sababay in dhulkii kala duwanaa ay horey uga qabteen kooxda RSF gacantooda uu ka baxo gaar ahaana galbeedka Suudaan. dowladaha Turkiga iyo Masar oo si weyn u taageeraya ciidanka Suudaan waxay bilaabeen hadda inay hub badan u diraan dhanka Cabdilfataax al-Burhaan wuxuuna qorshuhu yahay in dib loo qalabeeyo ciidanka oo lumiyay awoodii ay lahaayeen bilihii la soo dhaafay. Turkiga wuxuu hadda hubka soo marinayaa dhanka Masar waxaana ku jira hubka uu Suudaan u soo diray gaadiid ka gaashaaman diyaaradaha dagaalka iyo sidoo kale saanad u badan rasaas iyo sahay military taasoo ay doonayso Ankara in lagu xaqiijiyo in meesha laga saaro kooxda RSF. qorshuhu waa ciidanka Suudaan in loo dhameystiro dhammaan hubkii uu ku weerari lahaa galbeedka Darfur si loo cuuriyaamiyo kooxdan dibna gacanta loogu dhigo magaalada muhiimka ah ee Al-Fashir. sidoo kale dalal uu ka mid yahay Ruushka waxaa la filayaa maalmaha soo socda in ciidanka Suudaan ay u diraan diyaaradaha aadka u horumarsan ee dagaalka kuwaas oo ay ka mid yihiin Su-37 si loo xoojiyo ciidanka Suudaan oo qorsheynaya inay qaadaan dagaal iyo duulaan lagu soo afjarayo laguna joojinayo xawliga ay ku socdaan gulufka military ee kooxda RSF. dhinacyada taageersan Cabdilfataax al-Burhaan waxaa ka go'an inay sameeyaan wax kasta oo lagu badbaadinayo dowladda dunida aqoonsan tahay ee Suudaan taas oo wajahaysa culayskii abid ugu xoogan ay ka soo food saara dhanka RSF oo haysata taageerida dhanka Imaaraadka Carabta. ilaa hadda ma qeexna in Turkiga uu si toos ah u soo gelayo dagaalka ka soconaya Suudaan si la mid ah dalka Liibiya oo weerar toos ah uu ku qaaday sanadkii 2019 markaas oo jananka howlgabka ee Khalifa Haftar uu dadaal ugu jiray sidii uu qabsan lahaa magaalada Tripoli oo xarun u ahayd dowladda dunida aqoonsan tahay ee Liibiya. haddii Erdogan uu go'aansaday inuu galo dagaalka Suudaan waxaa la filayaa inuu isbedel ku imaan doono miisaanka dagaalka shaxduna ay isbedeli doonto sida ay ku socotay 2 sano ee la soo dhaafay. RSF oo haysatay toddobaadyadii ugu dambeeyay saaxadda dagaalkana ay la kulmi karto mid ka mid ah jawaabkii ugu weynaa maadaama tiknoolajiyadda hubeed ee ka imaanaysa dhankaasi iyo weliba sidoo kale wadamada Turkiga uu ka mid yahay ay ka horeyso mid kasta oo gacanteeda ku jira. Mareykanka, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Turkiga ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay dadaal badan gelinaya in dhammaan dhinacyada la isugu keeno miiska wadahadalka go'aan laga gaaro arrimaha la xiriira wadahadal iyo dib u heshiisiin. inkastoo ay taasi dhinaca Cabdilfataax al-Burhaan si adag u diideen haddana ifafaalaha socda ayaa muujinaya in Suudaan ay cagaha la sii gelayso dagaalo aan dhammaad lahayn isla markaana dhinacyada ay ku doonayaan awoodooda in ay ku muujiyaan. dahabku waa mid ka mid ah afooyinka ugu ballaaran sidaan hore u tabanay ee saameyn ku leh colaadda dalka Suudaan iyadoo dhammaan dhinacyada oo dhan ay eegayaan sida go'aanka madambaysa arrinkan looga gaari lahaa. Farxad Qaadir ee warbixintaasi diyaariyay Diblomaasi Media.